munaasabad kooban oo lagu qabtay degmada Afgooya ayaa taliska ciidamada midowga Afrika AMISOM ku wareejiyay mas'uuliyadda guud ee amniga taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliye ku-xigeenka ciidanka AMISOM, taliyaha qaybta 12 Abriil, taliyaha sector 1 ee AMISOM, taliyaha guutada koowaad ee qaybta 12 Abriil, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, gudoomiyaha degmada Afgooya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga iyo kan booliiska. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha sector 1 AMISOM, General Nabasa, isagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin in maanta ciidanka difaaca dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku wareejiyaan guud ahaan ammaanka degmada Afgooya ee gobolka Shabeellaha Hoose. Number 1 was the repair of the Ribiang Bridge, which was completed according to schedule. Waxaa loo hol saaray inay dayactirto boondada bariire. Number 2 was the closure and relocation of Maslai FOB. Waxay ahayd mid labaad waxay ahayd Maslai difaaca Maslai, which was conducted and accomplished as per the schedule. Iyadoo idan la hagaajiyay. Number 3 was the relief in place of the combined mobile force from Janale, which was also conducted successfully. Midda saddexaad waxay ahayd habka ciidamada fudud ee Janale jooga. Number 4 was the handover of Afgooya FOB to SNA. Tan afraad waxay ahayd gacan xil wareejinta difaaca Afgooya lagu wareejinayo militariga, which was a bit delayed, but finally it's the reason why. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed, General Maxamed Tahliil Beexi, ayaa uga mahad celiyay ciidamada AMISOM sida ay u soo gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka oo maanta awood buuxda u leh in ay kala wareegaan amniga guud ee dalka maadaama uu socdo qorshaha ammaanka guud ee dalka ay kula wareegayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. maanta waa maalin taariikhi ah. Today is a historic day. Waxaa muuqata in ciidanka xoogga dalka ciidamada qalabka sidana ay gaamureen oo ay la wareegayaan. It seems that SNA is now taking over. ciidamada AMISOMna ay howlgalkoodii hore u sii wadahayaan. And AMISOM is also proceeding to their operations. Waxaan fulinaynaa heshiis hore loo gaaray. We are fulfilling an agreement. Waxaan soo fulinay badbaada 1. We have done badbaada 1. waxaan hadda u diyaar garoobaynaa badbaada 2. We are going to do badbaada 2. Also waxaa weli hor yaala dhamaystirkii badbaada 1. So we are still in the completion of badbaada 1. hawsha maanta aan la wareegnayna waa qayb ka mid ah u gudbidda badbaada 2. The issue we are taking over today is to proceed to badbaada 2. waxaan rabnaa mar walba inaan ka mahad celino walaalahaya. We always thank to our brothers sida ay noo garab taagan yihiin, how they are supporting us. Taliye ku-xigeenka ciidamada AMISOM, General Shume, ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyadda guud ee taliska amniga degmada Afgooye. Where these Afgooya base meesha soo xarunta Afgooye will officially change hands from AMISOM oo isku gacan bedeli doonto AMISOM ka bedelmi doonta to Somali security forces and basically the SNA. ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada amniga ee Soomaaliya ku wareegi doonta. And this is in line with the AMISOM mandate. Waxaa lagu jirtay oo lagu hoos xariiqay waajibaadka AMISOM. It is also in line with the Somali transitional plan. qorshaha socda oo dawladda Soomaaliya waa ku hoos xariiqan tahay, and other strategic documents which envision the handover of priority locations. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi, oo munaasabada goobjoog ka ahaa, ayaa uga mahad celiyay talisyada maanta la kala wareegay mas'uuliyadda amniga degmada Afgooye iyo tan gobolka intaba. sababta maxaa farxad ay noo tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejinayo macnaha isku filnaashinaan gaarnay ciidanka Soomaaliya amniga degmada Afgooye. That we see our forces to take over farxad weyn ay noqotay and take the responsibility of the security from AMISOM Afgooye. To take over from AMISOM Afgooye. ciidanka xoogga dalka ayaa horay dhowr saldhig kala wareegay ciidanka midowga Afrika kuwaas oo ku kala yaala gobolada Shabeellooyinka. Maxamed Cali Sabriye, warbaahinta ciidamada degmada Afgooye.